waxaan ahaa jiray qof miisaankeeda 100 kiilo kor u dhaafay haddana waxaan ahay 60 kiilo dadaalay wuu gaaraa alxamdulillaah ilaahay ayay mahadaas u sugnaatay assalaamu calaykum asxaabteeda sharafta leh waa idin salaamay subax wanaagsan wax kasta idin tahay wacan oo wanaagsan aniga subaxnimo 12 saac ayay ii tahay asxaabteeda quruxda badan aad iyo aad baa idinkaga mahadcelinayaa kumantigiina quruxda badan iyo dhiirigelintiina sida u jeedaan jimicsi ayaa la hayaa hadda videoan ka heshaan asxaabtiina la wadaaga oo la share gareeya cayilka cudurkiisa waan soo arkay caatanimada caafimaadkeedana waan arkay dad badan ayaa waxay iska dhadhacsiinayaan qofta jimicsi sameynaysa amba jirkeeda dhisanaysa inay da'da la dagaalamayso misana inay da'da diidaysa laakiin saas maahan Soomaalida badankooda si qaldan ayay wax u fahmaan waa ogtiin hadda Soomaalida badankooda waxay la daala dhacsan yihiin sonkor dhiikar rab subxaanahu wa ta'ala intii la daala dhacsan Allah ka caafiyo intii xanuunsan Allah caafiyo intii xanuun oo caafimaad haysana Allah u ziyaadiyo marka inaad isteelkaaga aad dhisataa aad ay wanaagsan tahay cayil kaliya jimicsi looma sameeyo ani hadda cayil zaid ima saarno in igu filan waa haystaa oo milan laakiin waagii hore waxa la dhihi jiray abaayo uur miyaad leedahay goorme dhalaysaa dadkii haddan waxay taagan yihiin ruqyoy maxaa sida uga caatooda miyaad xanuunsanaysaa bini aadan marka meel loogu fakanayo malaha asxaabteedu waa ku muhiim inaad maanta videogan maxay tahay wax badan aad ka faa'iidi doontaan jimicsi haddaad samaysid adiga ayaa maxay tahay nafsadaada ku dadaashay caafimaad ayuu leeyahay jirkaaga inaad dhisataa waa muhiim kow waxaad ka faa'iideysaa markaad jimicsi amba train sameynaysid caafimaad ayuu ilaahay kugu siinayaa tan labaadne qurux waa ku qurux badnaahaysaa isteelka wuu ku dhismayaa qof waxaad noqonaysaa oo dhexdeeda kaale arag labiska rabtid ayaad xiran kartaa marka Soomaalida waxa waa ma taqaanin waxay iska dhadhacsiyeen maxay tahay in badar la iska buuxiyo meel la fariisto ma ahsaas hadda badar cuntid meel iska fadhiisatid gacantaada ayaa isku toogatay soco in alaal inta socon kartid soco 20 daqiiqo 30 daqiiqo inta awoodid waa inaad socotaa laakiin hadda meel badar cuntid meel iska fadhiisatid sida adiga oo badarkaas marka cunto u fadhiisatay badarkaasne wuu kugu fadhiisanayaa wadankan qurbaha dadka jooga ayaan si fiican wili caata kaga talinayaa qorax ma haysatid hadda badar si cuntid iska fadhiisatid gacantaada ayaa isku toogatay gabdhaha Soomaali joogan wadan waxay haystaan oo nadiif hawadeeda kala arag qorax ayay haystaan uma baahna inay jimicsi sameeyaan badarkay cunaan dhididka ka baxa waa aragtay laakiin anaga dadka qurbaha jooga wadamadan Yurub waa aragteen qorax ma aragna qoraxdeena aad ay u yar tahay marka muhiim waa inaad dhidid aad iska keentaa jimicsi aad sameysaa biyo badan aad cabtaa ma aha inaad badar iska cuntid iska jiifatid hadda caruur leedahay ilmahaaga markaad daagiska aageysid soco intii tabartaada soco marka asxaabteeda videogan ku soo biir channelkayga hadduu kugu cusub yahay ee aad tahay maalintii kugu horeysay aad daabatid subscribe-ka dhac ku sii asxaabtadan la wadaag marka aad iyo aad waxay ka shidan tahay marka inaan maanta waxay ii tahay 3 maalintii koow waxaan socday 5 saacadood maalinta labaad 3 saacadood maanta 3 iyo waxaan socday 2 saacadood marka muhiim ayay ku tahay inaad videogan aad dhageysataa wax badan ayaan soo wadaa videogan hadda ka heshaan waan soo badinayaa hadda u baahan tahan intaan iyo in ka badan ayaan soo wadaa haddii idin qanciyo inaan soo badiyo arabtaan barta commentiga nagu soo reeba insha Allah ta'ala rab subhanahu wa ta'ala Allah inoo fududeeyo qof walba hamigiisu uu gaarayaa marka aan hamigeygu wuxuu ahaa inaan hilibka iska tuuro waana iska tuuro alxamdulillah hadda dadaashid dadaalkaaga Ilaahay wuu ku garab siinayaa marka wax kastaba inaad jeclaatid ayaa muhiim aan habigeyga ayuu ahaa inaan miisaanka iska rido haddana waa iska riday alxamdulillah adigana hadda taa qof daneenaya inaad maxay ahayd isteelka iska saxdid miisaanka iska dhinta aarfid nagu soo biir channelkan waa channel oo maxay ahayd shaqal kulli qofkii cayil doonayna cuntadii cayilka waan soo galiyay
qoftii caata doonaysa cuntooyinka la isku caateyna waan soo geliyey habeenka markaa seexanaysid biyo kulul cab markaa oo subaxii soo kacday biyo kulul cab haddaa gaas u qabina liin dhanaan ku darso jabyariis sanjibiil sameyso waa kaasa marka videogan naga sheer gareeya hadduu ilaahay raali ka noqdo waana ku mahadsantihiin daawashadiina iyo aada daawanaysaan waa kaasa marka waxay ka shidan tahay xeebtan inaan sidaas ugu cararo insha allahu tacaala iskuulaan daleeyahay laakiin iskuulkeyga subaxii 2 saac iyo baraan galayaa marka waxaan go-aan ku gaaray iskuulka ka hor inaan jimicsi wiigan oo dhan aan wado haddii ilaahay raali ka noqdo intii karaankeyga waa nila soo wadaagi doonaa intii aan ka gaaro haddaa ka gaari waayana hortiina u soconaysiin insha allah walaalahayga waana idinkaga mahad celinayaa juhdiga aada igelisaan mahadsanidin madax korkiisa ayaa ii saarantihiin madax meel ka sareysa ma laha marka waxaa inoo balan ah inaan isteelka aan iska saxno inaan jimicsi aan sameyno hala sheer gareeyo sidaas iyo nabadgelyo